dhawaan waxaa magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka lagu qabtay shir ay yeesheen golaha daraasaadka Afrika waxaana golahaas sanadkii la soo dhaafay madaxweynuhu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhigay jaamacadda Minnesota waana markii ugu horeysay qof Soomaali ah oo madax u noqdo golahaasi shirka golahaasi oo dhacay Jimcihii ayaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar uu ka jeediyay khudbad uu kaga hadlayay deeqaha waxbarashada siyaasadda iyo mustaqbalka Soomaalida ورينا محمد عبد السمير واشنطن جوجا يا كل حرية قالت تلفون كي من يابولس بروفيسور عبد الإسماعيل سماتر وحنا وقرين ويدي وحا قولها نوي هاي ولا أورور كم وحلا بلعبة كون هي سجال بقولي كون تانية تطوري على بلعبة ما أورور سوق أورور لحن جرسدي كل وادي وحوي عندك أفريقيا علم باريس كسمية جن وقوي كأمريكان US أمريكان كي كندا يعد كلا حتى أفريقيا كتمادا ما يورو كتمادا يا أورور كم كجستا وحلا بارا علم باريس أفريقيا لغو سمية from South Africa إلى وقوي كأفريقيا بريق أفريقيا قلبي كأفريقيا برتمع أفريقيا تذكر كجرا وحوي لا صدق كون أو بروفيسور وياه أو أمريكان وبعدين بقول كيف مالها سيدتهم هاي أمريكان يهين مركز سنة كستو حلين حفلات لغو صوبان دقا وحي عصبايا أفريقيا علمي وحان لغا سوق صاري سنة كنا وحان نسوقون من مقالة بولتيمور واشنطن دوليد كيغا كالهوري يا سنة كستو قفبا الله دورتاين مدحوينة يهي مركز كالهوري وحانها مدحوينة كوهيان بانها سنة كنا مدحوينة عنها سنة كسو سعدان وحنا هاي مدحوينة هي هوري مركز صدح سنة دوت ايات جاقادة هتاينسا وحنا قفكي سوماليد وقوه ريي أوروركا مدحكا نقضة عالمي ايان هاورا waan gartay marka khudbad bad ka jeedisay meesha bal hadii aad faahfaahiso khudbadaadu waxay ku saabsanayd waxa weeye khudbaddu waxa weeye dadka Soomaalida haynu nahay ama la yiraahdo yaa wax ka qori jiray waxay ka qoraan qiimaheedu muxuu yahay gaar ahaan anigu waxaan bartay cilmiga deegaanka ama environment iyo geographiga iyo cilmiga dhaqaalaha marka waxaan ka soo bilaabay dadkii masalan gaalada ahaa ama ingiriiska ahaa shaqada bilaabay kontomeeyadii ilaa kuwa maanta jooga marka waxaan u kala qaybiyay saddex qaybood baan u kala qaybiyay dadkaas iyo waxay soo saareen ama dibtoodu waxay tahay ama deeftoodu waxay tahay ayay waraaqdeedu ku saabsan tahay si dadka Soomaaliyeed hay ogaadaan haddii line kuwa kamid ah ay raacaan halkay ku biyashiban doonaan marka qolada hore waxaan ku magacaabay waxa weeye qolonkii aasaasay waxaan cilmi baarista la yiraahdo xaggeena Soomaali haddaan nahay qaybta ugu weyn waxa weeye waxay magacaabayaan dadka Soomaalidu nooca yihiin siday u dhaqmaan dhaqaalahooda wax badan kama sheegayaan marka waxay ku soo biyashibatay inay yiraahdaan dadka Soomaalidu waa noocan hadda doonaysid qofka Soomaaliga ama Soomaalida inaad ogaatid maskaxdeedu sida u shaqeyso waa inaad ka abtirsiintooda eegtaa bay ku oranayaan marka diintaadii iyo dadnimadaadii iyo waxaagii oo dhan meesha laga saaraya abtirsiintii baa noqonaysa qofka tahay taariikhdaadu waxay tahay diintaadu waxay tahay marka waxaan ku lahaa hadday Soomaalidu qaybta caynkaas siyaasadooda iyo dhaqankooda ay raacaan ay taas maskaxda ka gasho waxa weeyaan ibtiradayna haysata ayaa sii ku dheeraanaysa waxa jira qolooyin taa ka dab qaadanaya oo 20kii sanadood ugu dambeeyay doonaya ummadda in la kala qaybiyo oo gobol qabiilo loo kala sameeyo sidii Bantustanskii loo jiray South Africa marka kuwa in Soomaalidu indhaha aad ay soo gaar ahaan kuwa madaxda sheeganaya iyo kuwa cilmiga baariya inay arrinta gacanta ku hayaan iyo taa mid ka bedelan oo aniga iyo dad kale fara badan oo Soomaaliya ajnabiga aanu ku jirnay marka ilaa 20 sanadood oo ah ما هالشخصي قون لما يجي وحويان تدخل حقيقي كيما دين دقن كوج محو هانجر الدين تود محي هانجر تي استعمارك محو كاني دولة هي كدبي محو كاني بربر كمحا كاني بربر كان سيدا لو كلا كروحي موحل وقا بحيا إن لا كلا قيبي أو قبيلة يجلسس وكلا قيبيو مسوا إن لسكوك تدخل إنك كودا بشبتان حق يا عدالة يا إسلام نما يا صومالي نما مركا منافعات كلا بدا إسكول أما لا بدا قيبودا وحبر شرع أيام ولا صوبان دقين وان ما أنت قلتين عد صومالي صوبان دقين waan gartay marka sidee u arkeen dadkii dhageysanay wallahi de waxaad laga yaabaa inay dadka dhageysanaya yiraahdaan imka dadka inaka idaacada inaga dhageysanaya Cabdi wuu faanaya laakiinse dhowrkii boqol meesha isugu yimid ilaa 800 ba meesha isugu yimid oo warka gaar ahaan u dhageysanayay intooda boqolkii waxaan islaahay laba qof mooyaane intooda badan waxay yiraahdaan waxan waa wax cusub oo ku soo kordhay cilmi baarista Afrika walaal oo aan Soomaaliya ku saabsanayn meelaha dibku ka joogay Afrika faraha badan leh wax tari kara ay yiraahdeen walaal Professor Cabdi waxaad xubin ka tahay sidoo kale
ururkaad iminka madaxweynaha u noqotay mooyaane urur kaloo la yidhaahdo African Academy of the Science baladad waxay iga sheegtay ururkaas iyo waxa uu qabto iyo sidaad uga noqotay xubinta wala waxa weeye horta ururku iminka wuxuu jiraa ilaa 30 sanadood oo dhow ayuu jiraa waxa weeyaan dadka Afrika cilmiga ka baara ee Afrikaanka xeel dheer ka gaadhay ayaa loo soo doortay iyagu isma magacaabi karaan iyagu isma qori karaan dadka guddi ku jira halkaasi oo iminka ilaa 150 qof ah ayaa codeynaya inta la qaato qofkii la soo magacaabay qof kale ku jira African Academy of Science waa horta ku magacaaba dabeedna waxa la qaadayaa taariikhda cilmiyeed ee CV-gaaga waa la qaadayaa dadkaas loo geynayaa wixii aad qortaa la akhriyaa wixii manaafacaadkeedu lahaa la soo ogaanayaa dabeedna dadka ku jira ayaa footeynaya in lagu ogolaado had ka noqotid cod iyo inaanad cod ka noqon karin nasiib wanaag walaal kal hore ayaa la ii magacaabay kaas doodii iyo waxa dhacday doorashadii baa dhacday waan ku guuleystay waxana noqday ilaahay mahadi qofkii Soomaaliyeed ugu horeeyay ee guddi Afrikaanka ugu sareeyay xagga cilmi baarista kamid noqday walaal